السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إليه سبحانه وتعالى أيام هذا بفضله ومنه وإحسانه. الله سؤول السلام كلنا أول آخر بن آدم نقدر يسأل كل قرنا محاسحا محاغلدا محاوس جوكتم محاكم مغنيكم ما أدقت هاي مسكح هذا ملو ليه هاي محمع عرسا ملو عريا ملو معمولا ما كلا قرنا يسأس بدلك فقي والله مقعابي بيت فارغة وتحبوا يجنقوا يتيعوا أي كلا جوستين كسر مرودك على الهين بقول حلبان أو صحيح الموشنكي آذن مذوب آذن شغ آذن مذوب تضوي طبعا مالمود أو يكدم منتهي سنة كي بشي شناد مي شن يوتبن كيدي برلمان كحل جانا وكلا مركي أو سنا وكلا جبو وحماشة كبحي شغ آذن مذوبي أما لما قربوا نغنيا وسنة كي أودن بي سنة كاس غير كل ما يسنيسا waxaa lagu qasbanaan doonaa in aad Siciidani iyo Axmed Madoobe lagu tago Boosaaso mahmah ayaan maqlay lafti Maryan qaada Madiina uga dambeeyay tukay qaato marag laawe nin elkan dheer hadaa marada ka soo rugto isla asagii habar gadirta waxaan dhihi lahaa iscaayaysa waxba ma haysaan iscaaynina doofaar hilibkiisa ama dhanka fiican ka fiiri ama dhanka buuran ka fiiri ama dhanka lafta la ka fiiri hilib doofar waa un doofaar wasaaradda gaashaandhigga gabdho abgaalaha haysta wax zaad iyo haddii ilaahay ku riyo hogaani abgaalaha haysta fiqi kursiga meel dhugto way doonaa maqaayada daba yare geeskeeda asagoo kula wareegaha la ii sheegayey waxaan rabaa inaan dhaho xasan sheekh maxamuud yuu u jecel yahay beesha habar gadir ninka caaya Soomaalida kale waliba isaaq iyo dhul bahan ma jirteen iyo ogaadeen ninka caaya ayuu xasan u jecel yahay caawi xasan sheekh maxamuud oo raxweyn kula hadlayay madaxtooyada wuxuu u sheegay dable ciidid waa idin toogtay degmadii Saleeman waa idin kaga qaaday waa bari arrimaha dibadda la idin magacaabay jiray waa idin magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeenna waa idin magacaabay shabeellada hoose waa idin hoos geeyay habar gadir waa idin buusay may arinu idinka hadleeyay dhanka kale wuxuu u sheegayaa Soomaalida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wow powerful habar gadir hay fiqiyow Siciidani tuug waaye Itoobiya kan waaye Israa'iil waa ku duuleynaa Somaliland waa cadow yowna ku dira Axmed Madoobe waa in la soo qabtaa marka la isku daro 150 xildhibaan ummad leh kuwa dhaqanaha joogo oo xamar jooga oo dhaqan sheegta in Axmed Diiriya u horeeyo raxweyn ay caynayaan 200 xildhibaan xasan sheekh maxamuud wuxuu la shirayaa ninkii fiqi caayay oo gabadheena qabay wuxuu la shirayaa kuwa isaaq lacag u dira xildhibaan gobsan iyo kulli ma qaribti Siciidani iyo asaga ilaahay isku qataari محمود سليمان اللي هذا أيك نمكاس وحدنا وتود أن هين دن وما بيردريان هبر قدر دن ملاذ ملهن وعن ربعنا أنه كفوا جاني نين ور هذا الشيء جدي سنة مع نحية سبب الملا علي عليو ولا لو كرسي كان سعد ملهن سعد هيسكدرن عبد الله يعور أيا اسكدجن ورعليو إلهي ما كعبست حق سوق بدني هبر قدر نفتح منافقة هذا ما كر ولا بحدي كوا سعد أجوابي علي يرو عبد الله عورنا كدحبح والكرسي كان هبر جيرا إسكالي سعد ملهن عبد الله لهين عورنا لهين كرسي كان كرسي هبر جيرا واي أفرتي سنو شيخ شريف عيرا فدي أفرتي حسن وعا فدي سعد سليمان أفرتي فرماجة عيرا فدي أفرتي الحسن الشيخ محمود وعا فدي هدي إلهي كرون يهي مرنا فقيا فدي مريا فدي جري يا أغوري فقيا أغوري ها ما قاعد أغوري سي ما يوسف قرana mar fadhi jiray ma ogi wasaasi bay ahayd dawladan hal wasiirana la kasi wasiirku waa nalku meed garaaca wax gaar ah malahan dadku nagu dira Soomaali marka waxaan raamid inaan u sheego Soomaaliyay fiqaaw kursi uu la wareegaya baarka daba yare intaan dhigta arimahan calisaya fadhisa mahan tuxubo waa fadhi janago waa mahan iskale tiifo waa meeshan iskale duqda habarta halkaas ay joogta gabarta weyna ma joogta gabarta keera ku xigta okay
wasiirka gaashaandhigga aadaya baa ka soo cararay ma wiilal habar gidir aadaya baa la gey doonaa gabdhihii habar gidir muqdisho joogay ninkii difaaci waayey ma wiilal habar gidir gurceel iyo matabaan iyo galinsoor iyo cadaad inta la keenay aadaya baa ka dagaali doonaan godka lagu adab muxuu oo been sheegay walaalayaal xasan sheekh maxamuud habar gidir waa dulmiyey aad u dulmiyey miisaankoodii waa dhumiyey kaba soo qabo raxan weyn ciidan ma lahan ninka meesha joogana waxaa la yidhaahdaa madaxaana furan waxaa lagu bedelay fiqi maxaa yeelay fiqiyaa ciidan leh ciidanka fiqi habar gidirtii muqdisho joogtay guryaha laga barakicinayay maxay u difaaci waayeen okay fiqi wasiirow ahaa dowladdan uu ka tirsanaa 3,000 oo wiiloo habar gidira dhagax tuurayso liida mushaarkiina waa lidinka goostay lambarkiina ciidamo wacayslaha lagu bedeshay okay ninka la leeyahay ra'iisul wasaare raxan weyn wiilal ma haystaan ee aniga wiilal haysta wiilasha hooyadood ooyeyso oo boqolka loo u xiran oo ilaa dhulka abgaal kunka wiil ku dhimatay natiijadeedu ma waxaad rabtaa fiqiyow ila ilmaha gudabaday ku joogaani yaa way wiilasha habar gidir aadaya bal xoreynaya hadiise gaashaandhigu macna ay caana leeyahay aadaya bal muxuu xorey way okay raxweyn aadaya bal ma xorey karto laakiin raxweyn dibaday ka shaqay kartaa waa gartay raxweyn waa la hafray hal arin xasan sheekh maxamuud raxweyn u sameeyay habar gidir ana dili kare dabla ciidi toogta kursiga Salebaan ninkii la dhigi jiray Saadiq John soo aan ima dagaalamin soo farmaajo kama hor imaan kursigiyaan ka qaaday raxan weyn adinkaan idinsiiyey ma iga warqabtiin intaas uu sameeyey xasan wuxuu muujiyay Soomaali tusiyay ninka fiqi la yiraahdo inuu kursiga ciidiid ku fadhiyo kursiga habar gidir ku fadhiyo maalin isaaq uu caynaya 36 xildhibaan isaaq oo kaliya leeyihiin ma ya qabiilku markuu dhumo miisaan uu yeelanaya habar gidir ma yeedid waxaan rabaa marka dadka habar gidir inay noqdaan kuwa wax uriya kuwa aan ku mashquulin sida loo dulmiyay oo loo budiyay fiqiya u horeeya fiqiya u dambeeya fiqiya u dheer fiqiya u dhaxeeya habar gidir tii garatay xilligii farmaajo caliyare u dheer caliyara u gaaban caliyara u kuusan habar gidir waa garatay caliyare waa dhaawici jireen cali jeeb ku jiray cali tuug xambaliyo ay soo wada qoreen cidii saacadaas ugu daran waxay u maleeyay kursiga saacad leeyahay war kursiga habar gidir iskale war waa wada leenahay war nooma qaadmo war tuxoo weejano oo fiiqday war waqtigu waa gabagabo war doofaar dhan kastoo laga eego dhadhan male war xasan habar gidir kala ma tashan wiilasha aan ilaashan talada koowaad waxay tahay fiqi ha iska shaqo tago iska daaman buurnaado meelaha iska daba wareego waa rijaal fiican alla bari caawa abgaala hadlaya caawa waxaa loo yaabaa shabaab caawa loo yaabaa gurceela 2,000 ka imaane 2,000 saacaday ka imaane 2,000 waxay ka imaane laa ilaaha illa anta subxaanak ma caadi camaaro ku xoreysan iyo ceelmuur ma ku imaano meeshii la jira ceel la helay walaalayaal Soomaalida oo dhan 69 sano qabiilka dan guud noqday habar gidir way xigaba waa ka xiga waranka xanaftiisa lagu soo qoraa war waxaas ma jirteen ma qoraan siciidani shalay waa hadlay Somaliland iyo Puntland waa xuduud baa ka dhaxaysa firdhiyo waxaan leenahay kaalay aan kala baxnay kala dhamaanay 17 xildhibaan meeshan joogta madaxweyne ku xigeen wasiiro cashuur dhaaf dekeday iska dhuuqayaan hadii laga dhuujiyo meel ay ka neefsadaan markayaan xagana ma jirtaan ugu soo dhufto waana sameynayaan waxaan aad u hambalyeynaya dhiirigelinaya bogaadinaya qabiilka dantiisa gartay maxamuud Salebaan ee gubta ee dekedaha sameysanaya ee kudaysiga mudan ee saaka dhuusa mareeb ay higsanayso garowe bal abgaal maxaan ka higsadaa aan ka higsadaa eedii ku dhashay was amartaysa wasooaya algeediya wuxuu yiri 15 kilomitir aan bixiyo haya ina barqaba waxay tiri xasana wuxuu yiri waa lugoyo haya haday balqiya waxay tiri janoq waa meesha ka soo qaxay qabiil challenge ugu jira aniga waxaan ka faa'iiday male xumaan bisan ka faa'iida hada aniga jamaal saan ma ajirin nin odaya waxa la arkay
عدة درس كلا صار نقطة دكس ودبك صار كلا عررة habar meel jiifta hadduu u yimaado waa dabagura gabar meel socota dabada ka taabana cunug yaro sokor yaan loo dirsado waa ka dafa maxaa kugu dhacay war aniga saan ma hajirno yiri waa fiicnaa jiray meeshan aan soo degay anigu fiican oo caraf fiican ka imid oo dhaqan fiican aba fiican qaba markaan magaaladan imid dhagaxa wiilka lagu dhufaa gabadhii islaanta dhagaxa lagu dhufana darisku waxay iga xadeen saddex digsiyo digiroo dabka saartay neef ariga ugu xirnaa ariga waa iga maalaan war waa yaabay islaanta waa iga daba gureen waa dhibaatooday markii dambe waa isbedelay warsaana noqday hadda aniga abgaal camal noqday challenge aan kula jiraa ay kala fiirnooya maxaa yeelay shaqo kale ma lahan ayaka dadka habargeeda marka lagu dheela dadka habargeeda marka sayn waaye maxamuud salabaan sayn maahan isaaq sayn maahan abgaalku sayn kama ahan dhibaateynta habargedir laakiin habargedirta waxay garan weysay wax la yiraahdo hiraab oo aan weligiis shaqeyn in history ma shaqeyn sida awgeed walaalayaal 17 maalmooda ka dhiman sanadkii ugu dambeysay 100 xildhibaana caawa saxiixday mooshinkii Sheekh Aadan Madoobe saas uu kala jawaab baarlamaanku 150 halka sano qaylo ku dhameysana ama Aadan Madoobe meesha ka baxa bareelis waaye waa isdagaxyeyn waa mooshin iyo baarlamaan waa banaanbax iyo qaylo xasab waqtigiisaas ku dhamaaday Mareykan iyo Ingiriisna waxay dhawaan waa inaad tagtaa Garowe oday abgaalaho jooga Garowe oo Aadan Madoobe ag fadhiyo waxay rabaan ka saxayaan waliba xamar ka dhawaaqa waa ka naqday cod qof codkii waa ka naqday kii kale waa ka noqday saas uu leeyahay sida awgeed walaalayaal ninka la leeyahay Maxamed Siyaad Barre ayaa wuxuu u dhaartay markii uu qabtay in Abshir Hamaan wuxuu ku yeeray Abshir Hamaan hada magaalada kala aqoonaysid aad Muqdisho hadaan kala aqoon habarteena sabadal xabsi ku amaay xabsi markuu ku xiro mid 7 wuxuu xirnaa ma aqaani magaalada Samaafara lagu xiray la qurxiyay feestal laga dhigay odagu gaari siiblaha ugu dambeysay Toto Stuud giir dheer leh Langurus yimaadeen aan laga soo bixiyay xabsiga mise Langurus muusika shiran yahay oo automatic oo habeenkii marka la shido nalal badan gudaha ka shidmayeen ruuxu waa madayurada dawladda arki jiray wuxuu saacada badana maxay yihiin odagu waxba ma oga magaalada Samaafara baxay nalal badana la shiday waa loogu tala galay wasiirka taliyihii booliska Soomaaliyeedu ma garanay meesha marayno garan ma haya walaalaniin xagee weeyaniin waa fiican tahay wallahi Siyaad Barre waa arsaday odaga waa la soo gudbiyay baa la fadhiisay waxa la yiri odaga caawa xamar waa kala aqooway xabsigii ugu wareeray jilbaha dhulka u dhigtay waraaya caawa magaalada kala aqooway waa kala qaadiyay wax gaarigan ku wareeray waa ma gaariga balaayo saacadaha badan waa kala aqooway Siyaad Barre waa yaqaan ma jirteen wuxuu ku dilay ma jirteen waa yaqaan wixii lagu dilay waa yaqaanaan habar gidiray wax abgaal lagu dilayaan ma taqaanin waa kala aqoowayni wax laga tashaas ka male roble nationality-ga loo diiday asna is xambaaro ku keenay ma had wada lacow haya waxa timaha isku dhigan bal meeshana la gaarsiiyay annaki xawaalay isku baawar sheerin maahin xawaalay habar gida isku dhigan